Magaalada Qudus waxay luntay maalintii Saadaad uu booqday Israa'iil ee heshiiska uu la galay, iyo maalintii aad Norway tagteen ood u dabaaldegteen shirkii ka dhacay Oslo. Trump waxa uu dharbaaxsho kulul ku dhuftay Carabta iyo Muslimiinta, waxa uu ugu baaqayaa in ay si deggan u aqbalaan waxa uu ku xad-gudbay heshiiskii 242. Waxa uu ku adkeysanayaa in Maraykanku yahay geeddi-socodka nabadda. Waxa uu rajaynayaa in dhexdhexaadiyeyaashu ay qabtaan qaybtooda, markaa xagjirayaashu waxa ay goyn karaan doodda dhexdhexaadka ah. Waxa uu sheegay in Israa'iil ay tahay dimuqraadi ugu wanaagsan maxaa yeelay waxa ay ku dhaqmaysaa midab-takoor ka dhan ah Muslimiinta iyo Falastiiniyiinta, sidoo kale waxa ay ku xadgudbayaan xuquuqda aadanaha. Alla aaween Carabtii iyo Muslimiintii. Dalka Bolivia ayaa dalbaday in la qabto shir degdeg ah oo ay yeelato Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay kaasoo looga hadlayo aqoonsiga Trump ee Qudus in ay tahay caasimadda Israa'iil. Aaway hogaamiyayaasha Islaamka iyo Carabta ee ka mid ahaa Golaha Ammaanka, maxay u dalban waayeen? Trump macquul uma ahan in uu go'aan noocan oo kale ahi qaato isagoo aan samaynin wax daraasad ah. Waxaa hubaal ah in ay Carabta hor imaan karin go'aanka ka hor imaansho xaqiiqi ah. Haddii ay ka hor yimaadaan, Trump wuxuu ogyahay inaysan wax iska dhici karin Carabtu. Inkastoo dunida dhammaan ay cambaareeyeen falkii uu ku kacay Maraykanka, haddana waxaa ka soo muuqanaya kuwa wax cambaareeyay kuwa shirqoollo wata sida Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrayn.